عيدا 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 وعيد ونكسني عيدا 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 وعيد ونكسني عيدا وماذا إسلامكم سماكو عيدا وماذا إسلامكم سماكو عيدا 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 وعيد ونكسني عيدا 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 وعيد ونكسني عيدا وماذا إسلامكم سماكو عيدا وماذا إسلامكم سماكو عيدا كل عام وأنتم بخير dhammaan ummadda muslimiinta waxaan ugu bishaareynaa farxadda ciidul adxa khaasatan waxaan halkan hambalyo u dirayaa hambalyada ciidda marwadeeda fiima caabi qodax iyo wiilkayga cordeed maxamed cabdilaahi maxamed kulli caam waanta bakheer waxaan leeyahay sanadkaas sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo allah inagu gaarsiiyo raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan salaamaya ummadda muslimiinta meel kasta joogaan dunida daafayda kala duwan waxaan farxad kula soo ciiday gobolka awdal magaalada boorama saaka alxamdulilah si qurux badan oo rooban ayaa halkan loogu ciiday waxaan ka salaamayaa hooyada igu qaaliya faado maxamed cawad walaalahay iyo intii muuqayga magacayga garanaysa waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogtaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr halkan ciid ugu dirayaa marka koowaad hooyo Sahar Maxamed Nuur iyo Abu Cabdillah Umar inta kale asxaabtaan waxa leeyahay intay garanaysan intaan garanaynba ciid wanaagsan waxaan ciidan niga soo ciidnay degmada Boorama xaafadda Sheekh Cismaan aad baan salaamay raxiim waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel kasta oo joogaan dunida daafahayga ciid mubaarak ciid wanaagsan waayo maanta waa maalin weyn waa maalin la soo gabagabeeyay xajul akbar waa maalin acmaashii xajka la soo xidhay waa maalin la soo gabagabeeyay waliba kaaga daranta maanta waxa isku kaya beegmay maalin jimca oo ciidii usbuuca iyo ciidii sanadka oo ciidal wadxadii ee ciidii weynayda ee waliba naxriga la sameeyay qalliinka la sameeyay ayaa maanta isku kaya beegmay wakadalika ilaahay nicmadiisa waxa kale oo kamida inuu rabbi subhanahu wa ta'ala roobkiisa oo noolisay oo wali hadda aynu har qabo u joogno waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel kasta oo joogtaan ciid mubaarak ciid al-caafiya ciid wanaagsan aniga magacaygu Mukhtaar Aadan Qumane waxaan ummadda islaamka dhamaanteed leeyahay ciid mubaarak waxaan si gaar ah waxaan ugu hambalyeynaa ciidda maxaan familygayga gaar ahaan inankayga maxaan Cabdiraxmaan Xasan Qumane oo leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr munaasabada ciidul adxa darteed waxaan uga faa'iideysanayaa halkan inaan ka tahniideeyo madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka marwooyinkooda qaranka waxaan leeyahay iyo qaranka jamhuuriyadda barakeysan shacbiga waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr ilaahay sanadkaas sanadkiisa inagu gaarsiiyo bashbashii barwaaqo bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah maanta waxaanu garoonkan isugu soo baxnay ciidda ciidal adxa anigoo munaasabadan ciidal adxa ka soo qayb galay waxaan ka faa'iideysanayaa jaaniskan iyo fursadan ay siiseen alxamdulilah waxaan dhammaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastoo ay joogto waxaan si gaar ah u salaamayaa asxaabteedii aanu kala baadnay daafaha caalamka aad u kala joogay waxaan sidoo kale salaamayaa saaxiibkaysa ahaa oo kulli waraysiga jaaniskani siiyey waxaan leeyahay dhammaantiin jasaakallahu khayr sanadka sanadkiisa ama ciidan ciideeda si khayr la ilaahay noo kulmiyo insha Allah inta ciid mubaarak meel kasto adduunka ka joogan daafaha caalamka waa maalin qiimi badan waa maalin shucuurta bini'aadanka maanta aan la soo koobi karin waxaan ku sugannahay xaafid weynta Sheekh Cismaan goob ay iskugu yimaadeen ay salaad ku tukanayeen wada aragtaa shucuurtooda aad bay wada faraxsan yihiin waa maalin qiimi badan waxaan u rajaynayaa muslimiinta meel kasto adduunka joogan maalinteeda sanadkaas sanadkiisa in bashbashiyo barwaaqo ku gaaraan asxaabta dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Mustafa Axmed Nuur waxaan halkan ambalyo u dirayaa dhammaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadka jooga Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr sidoo kale waxaan halkan ambalyo u dirayaa qaraabadeeda iyo familygayga iyo marwadeeda Hodan Axmed Cabdi Kaahin oo leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxa weeyaan ciidii Carafa waxaan halkan ambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr ciideeda Allah inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan leeyahay
ciddii xanuunsan allaha xanuunka ka dulqaado ciddii caafimaad qabtan ilaahay caafimaadka u siyaadiyo waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogtaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr ciid mubaarak dhammaan caalamul islaam dhammaan caalamkooda waxaan leeyahay ciid mubaarak farxad ku ciida taqabbal allah minkum acmaal saalixan waxaan leeyahay dhammaan ummadda islaamka ciideeda ilaahay farxad bashbash barwaaqay nagu gaarsiiyo waxaan halkan ka salaamayaa ehelkayga asxaabtayda dhammaan iyo intii maqalkii muuqaygaba garanaysa waxaan leeyahay farxad ku ciida ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan aad u salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr waxaan kaloo ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda waalidiinta labadeeda waalid hooyo aabbo xaaskayga inankayga dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ku ciida farxad waxaan dhammaan mataqaanaa kaloo salaamayaa dhalinta gobolka awdal iyo asxaabta kala duwan oon magaceeda soo koobi karayn dhammaantood waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr bismillaahi raxmaani raxiim marka koowaad waxaa mahadiska la ilaaha weyn ee waaxidka ayna keenay ciidii cadafo waxaan haddan dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan ulaha badanayaa bisha ciidda fiican ee ilaahay noo soo geliyey waxaan leeyahay ilaahay ka rajaynayaa ciiddeeda inuu ilaahay na ku gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash waxaa mahadiska la ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa ciid wanaagsan ciid al-adxa waxaan salaamayaa dadka islaamka dhammaantiin meel kastoo joogaan ciid wanaagsan baan ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi baan ku salaamaynaa nin walba bisheeda faafan iyo farxadda allaha gaadhsiiyo nin walba wixii xidhan iyo xabsi allah ku jiraan allah ka saaro nimcadda alla ina siiyana allah inoo barakeeyo bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa khaalid sulub ismaaciil dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciidul adxada awgeed hambalyada kadib waxaan maanta halkan ka salaamayaa dhammaan faamiligeyga oo ugu horeeyaan aabbo sulub ismaaciil axmed hooyo walaalo iyo dhammaan ehelka iyo asxaabta cid kasta oo muuqayga iyo magacayga garanaysa waxaan leeyahay meel kastoo joogtaan farxad ku ciida kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan ummadda muslimka oo dhan dhammaan asxaabtayda aad iyo aad baan idiin salaamayaa munaasabadda ciidal adxa ciid mubaarak baan leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr dhammaan ummadda muslimiinka ah meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr dhammaan reer somalilan gaar ahaan faamiligeyga waxaan u salaamayaa ciid mubaarak meel kastay kala joogaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr baan leeyahay maalinkan waxaan ka salaamayaa faamiligeyga hooyada iyo aabbahay iyo dhammaan faamiligeyga meel kastay kala joogaan waxaan ku leeyahay ciid mubaarak munaasabadda ciidda awgeed ciid mubaarak wa antum bilkhayr ciid mubaarak waxaan ciid mubaarak ummadda muslimiinta meel kastay ku ciidiyaan daafaha dunida mar kale waxaan salaamayaa faamiligeyga ayaan ciid mubaarak leeyahay waxaan salaamayaa maxaadaan bahda TV-ga qaranka Soomaaliland ciid mubaarak baan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan ummadda muslimiinta dhammaantood u rajaynayaa inay farxad ku ciidaan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan faamiligeyga meel kastay joogaan kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak waxaan halkan dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr ilaahay sanadkiisa ciideeda ilaahay khayr iyo barwaaqiyo nabadqab iyo bashbash allah inagu gaarsiiyo gaar ahaan waxaan ka salaamayaa dhammaan qoyskayga iyo saddexdeeda wiil wadhayda xalimaa iyo saddexdeeda wiil baan ka salaamayaa iyo dhammaan labadeeda waalid iyo faamigeyga oo dhan aad baan u sheegay salaamaya ciid wanaagsan ciidul adxa waxaan halkan ka salaamayaa qaraabada iyo qoyska asxaabta qaaliga dhammaantood baalkan waxaan hambalyo iyo salaan munaasabadda ciidul adxa awgeed ku salaamayaa meel kastoo ay kala joogaan dalka iyo dibaddiisaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel walbay joogaan farxadda ciidda aawadeed ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan guud ahaan gaar ahaan ummadda Somaliland qaraabada ma soo koobi karna dhammaan ummadda muslimiinta aad baan u salaamayaa farxad ku ciida baan leeyahay meel walba joogtaan kullu caam wa antum bil khayr taqabbal Allahu minna wa minkum salihul a'mal guud ahaan ummadda islaamka meel ay joogaanba gaar ahaan ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan
ciiddaa ciiddeeda ilaahay nagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad qab ilaahay ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka ama waxyaalahana ilaahay maalinta ciidda farxadda awgeed waxaynu ugu ducaynaynaa in ilaahay ka dulqaado wixii dhibaataa inta caafimaadka qabtana ilaahay caafimaadka u siyaadiyo intii xanuunsanaysana in ilaahay ka dulqaado xanuunkaasi alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka oo aan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan maanta oon joogo magaalada Boorama oo runtii ciiddu ay ku soo beegantay jawi aad u qurux badan oo roob iyo cagaarba leh maasha Allah waxa kaloon si goonayagana u salaamayaa familigayga xaaskayga iyo carruurtaydii oo nasiib daro maanta inaan wada ciidan oo ku ciidaya Stockholm Sweden oo coronavirus darteed ay suuragal noqon weydeen inaan wada ciidno halkan baan salaan gooni ugu dirayaa hambalyo munaasabadda ciid al-adxada awgeed waxaan hambalyaalkan uga dirayaa dhammaan ummadaha muslimiinta waxaan si gaar ah u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seylici iyo dhammaan xukuumadda Soomaaliland waxaan kaloo halka ka salaamayaa xaaskayga Saara Abuukar Cumar iyo carruurtayda dhammaantood hablahayga iyo wiilashayda oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba magacaygu Cabdirasaaq Cali Ile ku magac dheer Troys degan magaalada Boorama horta waan salaamay ummadda muslimiinta meel kasta joogto waxaan ka faa'iideysanayaa maanta munaasabadda ciidda waxaan ka salaamayaa hooyaday aabahay qaraabada asxaabta kulli waxaan ilaahay kullu caam wa antum bikhayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah maxamed aadan cali ku nool magaalada Boorama waxaan halkan uga hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan familigayga iyo asxaabteeda iyo ximuqayga iyo magacayga garanaya waxaan leeyahay ciid mubaarak bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin marka hore ilaahay baa mahad iska leh nagu simay inaynu ciid al-adxa ku qaadano farxad caafimaad iyo baraare marka labaad waxa aan halkan ka hambalyeynayaa ummadda muslimiinta meel kasta joogaan gaar ahaan waalidiintaydii oo jooga magaalada Dirdhaba hooyadii aabahay walaalay waxaan leeyahay ciid mubaarak كل عام وانتم بخير أصحابتي مالك جوجتو أنت مو قيقي مقعي قرنسا وحنا عيد مبارك مرة لبعض مرة استحاد إلى سنة كيس هنو قرسي عافمادية برواقية بشبش نيجا مقعي دحين مصطفى حسن وحنا هم بليو قدر عيد الأحزاب أوجد المسلمين مالك جوجان دمان ومدى الصوماليات مالك جوجتو وحنا عيد مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنا كنا بليو قدر يا qoyskii qaraabadayda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan munaasabadan ciid u hambaleynayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee gaar ahaan dadweynaha reer Boorama iyo reer Somaliland waxaan leeyahay hambaliyada ciidda ilaahay ciideeda inoo gaarsiiyo bashbash iyo baraara leh waxaan ummadda ugu duceynayaa in ilaahay ka aqbalo amaashii khayrka ay ku soo jireen maalmaha barakeysan kullu caam wa antum bikhair rahmaan rahiim waxaan halkan uga taaniyadeynayaa dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay meel kasta oo joogtaan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo waxaan leenahay ummadda muslimiinta meel kasta oo joogaan كل عام وانتم بخير عيد مبارك دمان ummadda muslimka meel kasta joogaan waxaan leeyahay sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo ku gaara amdada iyo caafimaad inuu gaarsiiyo ilaahay xanadana jiranaayna garamariyo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair inta muuqayga taqaana inta walaalaha iyo familiga dhammaan waxaan wada leeyahay ummadda islaamka meel kasta joogto kullu caam wa antum bikhair ilaahay sanadkiisa inuu gaarsiiyo بس برواقه بسم الله الرحمن الرحيم عيد وناكسن دمان مد مسلمين تودن waxa ku leeyahay ciid wanaagsan ilaahay khayr badan iyo nimcaha ina siiyo qulubteennana ha isku soo dhaweeyo aad baan idin salaamaya بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك كل عام وانتم بخير waxaan hambalyo farxada loo wadaagaya dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed meel kasta joogaan gaar ahaan shacbiga ku nool jamhuuriyadda barakeysan Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi iyo xigeenka Ismaaiil Cabdilaahi Ismaaciil Seydici dhammaantiin waxaa leeyahay ciid mubaarak iyo shacbiyada jamhuuriyadda barakeysan waxaan halkan ka hambaleynayaa
ummadda islaamka oo dhan dhammaantood ayaan ka hambalyaynayaa waxaa kaloo ka hambalyaynayaa hooyaday iyo walaalahay hooyaday xaliim maxamed nuur iyo walaalahay dhammaantood iyo inta magacayga iyo muuqaygaba garaysa ayaan u hambalyaynayaa keenay waxaa xaggan horta ummadda muslimiinta waxaa leeyahay kulli caam waanta bikheer dhammaan meel kastay joogaan waxaa leeyahay farxad ku ciida xagga waxaan ka salaamayaa waalidiinteeda ay ugu qaaliyo hooyada ugu horreyso waxaa leeyahay iyada meel kastay joogto waxaa leeyahay farxad iyo cimri dhar ilaahay kuu gaadhsiyo ummadda muslimiinta waxaa leeyahay dhammaan kulli caam waanta bikheer magacayga waa samatalis dhammaan xagga waxaan balyo ugu dirayaa ummadda muslimiinta waxaan leeyahay meel walba joogaan kulli caam waanta bikheer ilaahay ciideeda nagu gaadhsiiya bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وحلنا مدة الإسلام خميس سجلتوا عيد مبارك وحلنا كسلامنا دمان فاميليا أصحابها قرابتها وحلنا هي عيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد المسلمين تا جارهان أمد الصوماليات وحلنا هي عيد ونكسن وحن فرحة عيد داود هلكن كسلامية دمان أمد الصوماليات ويجوه الرئيسو hooyadii Faysal Maxamed Nuur iyo aabahay Faysal Maxamed Cilmi oo aan leeyahay dhamaantood ciid wanaagsan soo kale waxaan farxadda ciida hambaliyada la wadaagayaa dhammaan asxaabta aan bahawadaagtanahay waxa kale oo salaamaya dhammaan bahda macallimiinta ee aan iyagana wada shaqeyno sidoo kale waxaan aad u salaamayaa macallimiin ardaydeeda oo aan leeyahay dhammaantiin ciid wanaagsan waxaan leeyahay farxad ku ciideeda insha Allah waxaan idin rajeynayaa bashbashay barwaaqo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo caalamul islaam oo dhanba waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ilaahay ciideeda caafimaad qab iyo bashbash iyo barwaaqo ay nagu gaarsiiyo waxaan ka salaamayaa hooyaday Khadra Muuse Faarax iyo dhammaan my family-ga asxaabtayda qaraabadayda iyo cid kasta oo magacayga iyo muuqayga garanaysa waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ilaahay xanuunada socdana hay naga raaciyo ciida sanadkiisa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ilaahay xashka ha u furo masiiba ku habsatay adduunyadii oo dhan ilaahay ciidan naga raaci baan leenahay ilaahay naga aqbalo acmaasha wanaagsan iyo soonkan soo soomanayn kullu caam wa antum bikhair baan leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim ciida carafo awgeed waxaan halkani hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel ay joogtaba waan leeyahay ciid mubaarak ciid alcaafiya ilaahay ciideeda bashbash iyo barwaaqo hay nagu gaarsiiyo كل عام وأنتم بخير إلهي وحن كبرينا إنه إنجا أقبله أعماشي ونكسنيد أن سوق بناي دمان مسلمين تنوحن لهاي لهاي سنة كيسا إنه قارسيو بش يبرواقو قارهان دقمة بورما شعب كذا أيان لهاي عيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم halkan waxaan ka salaamayaa hambaliyo salaan uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogaan gaar ahaan reer Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay ku salaamayaa salaanta islaamka taqabbal Allahu minna wa minkum saalih a'maal sanadkiisa Allah inuu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay horta mahad inuu caafimaad qabna ciidana gaarsiiyay waxaan kan salaamayaa waxaan baryaynaa ciid al-Arafa dhammaan muslimiinta islaamka oo dhan meel kasta joogaan gaar ahaan Soomaaliland inuu ilaahay ciideeda bashbash iyo barwaaqiyo nabad qab ilaahay lagu gaarsiiyo ummadda inta xanuunsanaysa ilaahay caafiyo intii caafimaad qabtay ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan ummadda islaamka ee muslimiinta ee Soomaaliland dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciida ilaahay nagu gaarsiiyo gaar ahaan waxaan salaamayaa gobolkayga Awdal iyo magaalada Boorama iyo dhammaan cidda taqaana muuqayga iyo araggayga iyo magacayga waxaan leeyahay ciid mubaarak ummadda islaamka waxaan la wadaagayaa ciida farxadda ciida كل عام وأنتم بخير وحن دمان سلام يا دمان أمد الصومالية دبديو ضلبة شوقة وحنا كل سلام يا فرحة عيدة كل عام وأنتم بخير الله إنك قارسيو عيدة كفر بدنبا بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير هل كان وحن كهم بليري عيدة مناسبة أوجد والد كيجا ويدي ابن عمر يا أبي محمد داير ولا هي هو شوقة دبدة يكون بداية شوقة وحن لي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير بشبشي برواقو إلى عيدة ينكبضن بلاينا وقارسيو دمان تو حالي إسلام كوردن عيد مبارك Somaliland دمان تدويني كوردن ميلا جوجان يدك Soomaaliyeed ciida hambaliyada uga diraya dhammaan ummadda islaamka meel kasta kala joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo leeyahay kullu caam wa antum bikhair ciid mubaarak ciid al-adha mubaarak ilaahay acmaashayni wanaagsaneyd tobanka ahaa ee dambe Allah inaga aqbalo
ummadana Allah cudurka iyo dhibaatooyinka Allah dhaafiyo ilaahayna ay naga dhigo ciideeda kuwii farxa ee bashbashiyo barwaaqo ku gaadha ciid wanaagsan dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan kaloo si gaar ah anay ciid wanaagsan ehelkii qaraabadii kuwii dalka joogay kuwii dhulka joogay hooyaba noo salaamaya dhammaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair sanadka sanadkiisa ku gaadho barwaaqo asxaabtuna waxaan leeyahay alayhi salaam alayhi sarko salaamu calaykum waraxmatullahi gaar ahaan ummadda Soomaalida ayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid al-adha ilaahay ciideeda farxad iyo barwaaqo Allah inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ciideedii in ka badan baa Allah inaga gaarsiiyo ummadda muslimiinta wixii xanuunadu hayaan Allah ka dulqaado wixii caafimaad hayaan ilaahay u siyaadiyo wixii dhintay gaari waayeen Allah u naxariisto الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عيد مبارك كل عام وانتم بخير كل سنه وانتم طيب waxaan aad iyo aad u salaamayaa ummadda islaamka yaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta joogto gaar ahaan ummadda Soomaaliland gaar ahaan qaraabadayda gaar ahaan saaxiibaday dhammaan aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu sano طيب waxaan leeyahay ilaahay haynaga aqbal acmaal saalix soo qabanay kullu anta bikhair ilaahay dabigana ha dhaafo والدنا دافع خاطبنا يا رجل كل عام بخير waxaan leeyahay dhammaan ummadda islaamka kullu caam wa antum bikhair ciid mubaarak inta caafimaad qabtay ilaa caafimaadka ugu wada inta bugtana Allah caafiyo intii dhimatayna Allah u naxariisto maanta nasiibiyana wadaynay ciida ku ciido nala ciido waxaan kaloo dhammaan salaamaya ummadda islaamka meel kasta dunida ka joogaan iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak qoyskayga qaraabadayda ehelkayga inta muuqayga magacayga garanaysa waxaan leeyahay ciid mubaarak farxad ku ciida meel kasta dunida dacaladeeda joogtaan khaasatan hooyaday macaan Arda Cusmaan Xasan waxaan leeyahay ciid mubaarak maanta waa ciid wanaagsan ciid al-adha waxaan salaamayaa dadka islaamka dhamaantii meel kasta joogaan ciid wanaagsan baan ku salaameynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi ku salaameynaa in walba bisheeda faafan iyo farxadda la gaarsiiyo bismillaahir rahmaanir عيد مبارك كل عام وانتم بخير waxaan aad u salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan waxaan leeyahay كل عام وانتم بخير waxaan kaloo ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda waalidiinta labada waalid hooyo aabo xaaskayga inankayga dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kan dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan leeyahay كل عام وانتم بخير ilaahay sanadkiisa ciideeda ilaahay khayr iyo barwaaqiyo nabad qabiyo bashbash ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan ummadda muslimka oo dhan dhammaan asxaabtayda aad iyo aad baan idin salaamayaa munaasabadda ciid al-adha ciid mubaarak baan leeyahay ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogtaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair walkan ciid ugu dirayaa marka koowaad hooyo Sahar Maxamed Nuur iyo Abu Abdullah Umar inta kale asxaabtaan waxa leeyahay intay garanayeen intaan garanaynba ciid wanaagsan waxaan ciidan niga soo ciidnay degmada Boorama xaafadda Sheekh Cismaan wa ayaan faraxlo ehdiyo qaraababa isku urfayo noqda aayatiin waxaan ciida وعيد ونكسن عيدا ماذا إسلامكم سماك عيدا